السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا ما شاء الله وحيروا إعلامين يرى أنسوق لي أحب إن عدكي مخشان ساكو حوجا وإذن كير ديرانا وحربا إن إذن شاقو إنه وقتي سودوي هاي أحب إنه إنترنت كي أوكي يا مركوري أوكي ما شاء الله والله سوق لي Okay, good. سودو هذا إبراهيم كابتن سودو ولال محاسب ريا أذينا سودو ما شاء الله سودو هذا قهوهنا كوبكينا شاها كسودو هذا مصطفى سيدو كله وحيروا إعلامين أي إذين سوقلي ما شاء الله أنت إذين شيئين وحنروا إن إذن لقب صدق gratitude كيجا الحمد لله رب العالمين فول الله سبحانه وتعالى يا مهدس كله ومالين نوجد دي مالين وناكسن قرحنا نوجرتو أهدان كان هدا إذين جيو مالين قرح له تخيلنا مالين تكواد عيالكي اسكولكو كن نقدان وانا أحيسي صوبتو وحيسي جورجا اسلا جوجني وقتي اسلا قادني يعني أيجا waxaan sii kordhisanayna xiriirkeeni sababtoo ah iskuulka 9 ilaa waxay ku maqnaanay especially kuwa waaweyn waxay ku maqnaanay long time waqti aad u dheer subaxii kaaga tagaan ay kugu imaanayaan 3:30 ama 3 o'clock qaar ilmo waxay yimaadaan 4 o'clock so waxa xoogaa yar ay haysto xiisida oo xiisay guriga ayaa ila guuxay ma sha Allah babyda yariista bas joogto yariistana hadda waan seexiyay waxaan jeclaystay inaan wax yar idin iclaamiyo iyo san waqtiga ku dhaafin especially waalidiinta waxaan rabaa topiga meesha aan ku soo qoro aha toogna waan ka hadli doonaa topigaas oo ah aan filaayo in aad dareemi kartid suu u culus yahay u adag yahay that's why ugu qoray hard talk good hello Didi hey mashallah so do before topic aan taabanin hadii aa waalidiinta London degan kamid tahay yuusan waqtiga ka dhumin and programkas only limited people ayaa meesha imaanay 50 waalidiin kaliya ayaa ma aragtay kuraastas u diyaariyay 50 waalidiintaasna waxa jeclaan lahaa in aa waqtigiina ka faa'iideysataan oo aad tigidhki meesha idin kugu soo qoray and meesha lagu dhigaan Hotel Plaza oo in London Central London ku yaalo addresska postal code meesha ku qoran yahay you don't need information kale information code dan meeshas ayaan ku soo dhigay hadda dib u soo laabtay intaan topic gelin walaalaha soo gala oo aan London deganeen adinkan sa ajir uga heshaan la wadaaga dadka kale si ay uga faa'iideystaan at the same time na togaas waxaan sameyn doonaa dadkiinan aan London ku nooleen in ay ka faa'iidaan adinkan aan Facebook live u soo geliyo qaabka aan u hadli doono oo aan ma aragtay u sharixi doono waxyaalaha sida waalidka relationshipka iyo ilmaha taasna insha Allah haduu Ilaahay idmo ii soo duceeyo this is my aim in idin soo gudbiyo adinkana ka faa'iideystaan before amarka intaan arintan ka dhamaanin waxaan ma aragtay su'aalo ayaa jiro badanaa la soo weydiiyay laakiin aan ka gabado waxaan rabaa wax yar inaan ka taabto topigaas oo ah characteristic ma aragtay narcissism dadka ma aragtay af Soomaali ahaan oo aadno dadka is cajibiye dadka isla weyn so before topic aan gelin bear in mind kama hadlay yani ma dhahay dadko dhan way wada xun yihiin dadko dhan waa saas waxaana ogaataa the whole population study markay sameeyeen only 1% oo dadkaas jiro dabeecadaas leh so dadkaas oo kala dabeecadaas leh hadaa la nooshahayna ha tuurin but strategy jirto loola ma aragtay macaamilo inaad strategigaas baratid hadii naftaada ciriir ku noqotan aa fahantid sababtoo adiga ayaa naftaada iga og aniga ma ogaan kari the only thing aan kula wadaagay waxay tahay wixii aan arkay iyo study badan hatta in psychology markaan soo baranayay waxyaalaha personality-ga different personal waayga hore lama fahmi jirin dadku waxa loo arki jiray qofka inuu isla weyn yahay dabeecadiisa sometimes no waa certain characteristic dad waxa jiro dabeecadaas personality-gaas xitaa hadda waxay dhan spectrum ahaan waa disorder waa xanuuno jira so taasaan rabaa inaan ka hadlo ma sha Allah okay af Soomaali waxa iigu dhawaada aan ku fasiri karo waa kow isla weyni and qofka waa inuu arrogant ahaado uu maaragtay everything uu ku qaldan yahay uu san qaadanin uu kor isla lahaado nafsadiisa oo dhaho okay aniga saxsan okay dhanka kale hadda aan soo noqdo oo maaragtay fasiraadeeda characteristics oo saxda ahna number 1 waxa waa characteristic qofka they need for admiration waxay jecel yihiin people admire them in maanta la dhaho heblayo is the best person in the world heblayo ayada adduunka ugu fiican hebel asaga adduunka ugu fiican daqiiqad kasta waxay raadinayaan
admiration in ma aragtay ayaga kor loo qaado. This is the characteristic ay leeyihiin. Again waxa kaloo ka mid ah characteristicooda waxay ku leeyihiin nolol ma aragtay nolol dabeecad ma aragtay dhaqan attitude dhaqan waaye dhaqankaasoo dysfunctional oo dhaqan oo aan caafimaad lahayn. sababtoo waa aragtay wax markuu caafimaad yahay waa wax adiga ku fiican qofkii ku ag joogana oo nolosha kula qaybsanaya ama qofka daris kula ama qofka wax isku darsataan ama friends kaaga ay faa'iido ka helayaan. sababtoo maanta haddaan aniga wato energy wanaagsan haddaan wato positive attitude aan wato dabeecad wanaagsan aan wato waan ogtihiin akhlaaqda number 1 waa rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu sheegay husnul khuluq dabeecadaha wanaagsan. so dhankaas haddaan anigu dabeecad wanaagsan ku soo ag fariisto faa'iido ayaa iga helaysaa. laakiin qofkan kale oo dadka characteristics leh marka soo ag fariisatid ama ag joogtid adiga maaragtay dhibaatooyinka ku soo gaarayso waxay wataan dysfunctional attitude dabeecad ma aragtay aan caafimaad lahayn adigana ku lahayn dadka agaarkooda u joogana oo soo u lahayn. okay waxay kale leeyihiin lack of empathy naxariis ma lahan. Allah subhanahu wa ta'ala again isku naxariistuna dhahay wuxuuna dhahay in qofka kale ibn aadanka aad dareemi kartid. rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiiskiisa wuxuu ahaa cudwa qofka jirkiisa qofka kale walaalkiisa jirkiisa waa dadka lagu yaqaano dabeecadahaas oo ay idin soo sheegay is cajibiyo ama isla weyn ma aragtay exactly malahan apathy in qof kale ay fiiriyaan. sababtoo maanta hadda aniga wanaag isu rabo nafteeda waan dareemi karaa insha Allah waxa idin guda gali doonaa waxa ku kalifay sababtoo waxba ka keenay inay qaabkan u dhaqmaan maxaa ku kalifay. that's the second thing aan ka hadli doono insha Allah. and bear in mind waxay always yihiin resisting-kooda ma aragtay resistant to change dad isbedeli kara ma aha. wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakatuh. soo dhawaada dadka kale dad isbedeli kara ma ahan oo isbedelka ayaa ku adag waxay ugu adag tahay sababtoo waxa again waxaan kaga hadli doonaa markaan ka hadlaayo waxa ay meeshaas ka keeneen sidii ku noqdeen dabeecadahaas gaarka ah. so again they're resistant to change ma bedeli karaan behavior-kooda also waxay jecel yihiin dheriga inay dabka ku dheereeyaan always because waxay ka helayaan pleasure farxad waxay ka helayaan farxad adiga aad u jeedin. sababtoo waxay jecel yihiin dheriga maaragtay ama dabka cuntada ku karinaysid markuu saaran yahay because adiga waxa og tahay time-ku ku kari lahaa waxa laga yaabaa inaad qiyaas ku geysatay nolosha dhan waa qiyaasas qofka ibn aadanka wuxuu ku socdo. so like ayaga waxay jecel yihiin stop ama waxa inay u dheereeyaan u cirka aado dherigaas u gubto. taasna waxay ku tusinaysaa qofka ibn aadanka limit ayuu leeyahay they already pleasure ayaga ku helaan inay ku farxaan laakiin adiga liifada ku dheereeyaa. hobina ay fahanteen taasna insha Allah tusaale ahaan idin siin doona. welcome everyone gadaal dadka soo galay waxa hadda u soo galaya dadkaas maxaa ku kalifay yani adiga ahaan maxay ku geysan karaan. insha Allah topican is a topic balaaran oo aanan aad u wada dhameyn karin anigoo jecel si quickly inaan idin kaga baxo. this is wallahi is not wax wanaagsan ma ahan وانا anaga ahaan yani dadka kale markaan arko there's an easy way to spot oo dhaqso loo fahmo. laakiin dad waxa jiro oo markaad noloshii xitaa qofkaas noloshaas ku nool oo qofkaas la wadaaga ama daris yihiin ama walaalo yihiin ama qof kastoona ku dhaca ogow adduunka dhan in ka jirta. it's not only Somali, it's not only Pakistani, it's not only that dadkoo dhan adduunka jooga populationka dhan lagu leeyahay 1% ayaa ka qaabka dabeecadaas leh. so dabeecad adag waa dabeecad qaldan waa dabeecad yani qofkaasna ku kalifay in uu dadkii la jooga ama gaarkooda joogay uu ku dhaliyo wax la yiraahdo caafimaad darro dysfunctional inuu ku dhaliyo oo dadkaasna in entire their life noloshoodii ay ku jiraan dhibaatadaasna ay meeshaas uga imaatay. okay so dadkaas marka maxaa yani qofka la nooloo kale subhanallah dhibaatooyinka waaweyn uu ku qabo kale waxa kamid waxaan rabaa inaan horta ku sheego study badan jiro oo la dhigay studygaas oo dhahayo dadkaas ma og yihiin waxay kugu sameynayaan mise ma oga. study marka 3500 people ayaa ma aragtay lagu sameeyay meel university student. studygaas marka wuxuu specifically fiirinayay uu test ka qaadayay dadka dabeecadahaas is cajibiye leh oo ma aragtay isla weyn oo arrogant oo bright oo aan dadka yani naxariis tusinaynin oo aan jecel markasta inay dheriga dabka ku dheereeyaan dadkaas ma og yihiin waxa ay sameeyaan. so guess what aniga surprise ila noqotay sababtoo awal
the study yara waxay soo dhahayo ma is oga self awareness ma lahan isku ogaadan waxay sameynayaan iyo wax ay yihiin so like study-gaas iyo study kala badan waxay proof gareen in qofkaas uu is og yahay in uu is og yahay uu is leeyahay uu og yahay waliba dadka inay og yihiin waxa uu ku dhaqmaayo iyo waxa uu yahay so taasna markii ogaadeen yani waxay noqotay wax surprise because they know inay qaldan yihiin they know waxay sameeyaan laakiin waxay aaminsan yihiin fear the opposite emotion-kooda wuxuu tusinaa waxay aaminsan yihiin dadkan kale waxay arkaan oo jealous ay iga yihiin aniga iga masirsan yihiin fear meesha isu arki lahaayeen dadkan waa fahantay in aqaldan tahay way ku fahmeen af Soomaaliga hadana dib u soo noqday laakiin waxay ayaga iska dhaadhiciyeen dadka is cajibiye waxay iska dhaadhiciyeen hadii yani dadko dhan aniga jealous igin waa iga masirsan yihiin aniga ma aragtay ima gaari karaan so they have to in wax aniga iga sheegan waay so that means qofkaas ahay way ogyihiin inay ma aragtay jaakada oo ah is cajibinta ay xiran yihiin ama cambuurka is cajibinta inay xiran yihiin way is ogyihiin laakiin waxa ka tanbadatay niyadoodii waxa ku jirto because reasoning u yeelan that's the only reason ay u sameeyeen hadaa dib u soo noqdo dadkaas exactly waxa jiro ee ka cararan internal ayaga critique ayaga meesha hadda idin dhahayo way dadkaas maxaa ku kalifay number 1 waxa ku kalifay gudahoodii ayaa wax ka guuxay gudahoodii ayaa wax ku criticism gudahoodii ayaga ma aragtay personal ahaan cod ayaa ku jiro codkaas ayaa wuxuu leeyahay waa qaldan tahay saa u hadashay wax fiican ma ahan codkaas wuxuu leeyahay self image kaaga ma aragtay sawirka ee dadka ka haystaan waa sawir qaldan so instead codkii ee la dagaalami lahaayeen waxay la dagaalamayeen dadkii banaanka joogay dadkii ku hareereysna ay la dagaalamayaan I hope ina ila fahanteen so always waxay ku jiraan defensive maanta dhan you adiga ma aragtay aniga la inacibi aniga saan la dhahay dadka saan ay arkeen wallahi because waxa ay qof jaakada adduunka wato qof waxa ay saan because hebel way iga jealous iga yihiin so I have to be wadadaas ina ku sii socdo waxa ugu sii socona because waxay isleeyihiin waxa u jawaabaysa wax gudaha ka guuxay gudahoodii wax ka guuxay instead of in awareness tiyaan wax gudaha ka guuxay la dagaalan oo ma aragtay confidence kaaga dhis self esteem kaaga dhis ma aragtay kor u qaad ha ka walwalin this is a voice while qofka kale normal ka oo aan qabin is cajibinta isla weynidaas wuxuu raadsadaa sidoo codkaas u la dagaalami lahaa so dadkan codkaas ayaa ku kalifay in ma aragtay saa u dhaqmaan tusaale ahaan idin siinaya xitaa may ku faraxsan hadaa hadal jacayl ama hadal wanaagsan aad dhahdid ama aad ku dhahdid sababtoo ah always waxay raadiyaan again anigo deeply u sii galayo and which is plankeyga ma ahan ina ma aragtay deep u sii galo waxay raadiyaan in qofka ibn aadanka hadii hadda fiiri qof walaalo aatiino kala ama asxaab aatiino kala uu ku yimaado oo ku dha thank you well understood Safia Saida thank you macanto and for ma aragtay isu sheegtay waxay for example idin siina scenario qofaas asxaab isku saaxiibtihiin qofkaas always waa iska ilaalisa waxa iskaga ilaalisa inay ma aragtay wax walba marka uu sharaxiis ama ku fahmi waayaan hadalkii maanta dhan inta ka keenaysa so waxa laga yaabaa in qofkii ku dhaahdo wallahi hebel wax fiican sameeyay ma sha Allah well done waxay ku leeyihiin anima well done ilaada warbax origad hadalkii waxa ka soo horbaxayo naciibkiya soo baxayo adiga markuu qofkii wanaaga tiraahday sida husband and wife oo kale laba xaas iyo odageedu kale ama ma aragtay laba oo xaas ah ma aragtay husband and wife waxa laga yaabaa in xaaskaadu ku soo gasho ama odayga ku soo galo uu ku dhaho walaalay ma sha Allah qof qurux badan ata ama saana tahay adiga automatically gudahaagi image-kiya qaldan image-ki ay haysataa qaldan waxa la soo boodaysaa war anaga hana dhihin waa qurux badan tahay war anaga hana dhihin so anaga ha dhihin marka tiraahdid qofkaas xaaskaaga aha ama ma aragtay zawjkaaga aha waxnaaqaya markuu xanaaq wuxuu kula warbax waligaa ma qurux badnaan naga tag ana qaldamay waxsan ku dhahay ayaga they taasi rabaan that's the only thing ay rabaan dhagahooda inuu ku dhaco sababtoo ah isma aaminsano gudihii image-ka u sheegtay oo adiga aad dhahday so waxaan kugu waaninayaa hadaa qof aad tahay dadkaas oo kale la dhaqmo ama dadkaas oo kale wax ku darsada ama waxa sameeysaa strategy stop explaining to them waxna explanation ha u gelin for example oo kale marka isugu imaataan waxay kugu fahmin ha ku celinin secondly hadii xataa group conversation isla yeelanaysaan waxa laga yaabaa adiga in one person always attackan in waxa laga yaabaa adiga conversationka isla wadataa hadalka ay ka dhaliyaan inay ku fahmin
adiga markuu xasku dagaysa inaa fahansiis laakiin qof kale hadduu hadlo qofkaas kale fahmin adigana the same thing aad dhehaysa fiiriya qofkii kale wuxuu dhahayay is the same thing qofkaas uu dhahay laakiin adiga they don't want to understand you waxay rabaa inay fahmaan qofkan kale so adiga maxaa noqonaysaa entire life waxa ku jirta circle inaa qofku fahansiisid so always isku day in aad ma aragtay explanation siisid and waxaana ogaataa you not being ma aragtay misunderstood lagu ma ahan inuu qofkaas ku fahmi waayo they way ku fahmeen laakiin ma rabaan ayaga gudahooda isfahansaneen daas waa qofkan kale agtaada fadhi inay moo ay fahmaan intii adiga ku fahmi lahaayeen adigana hadhoodii oo dhibaatada gudahaaga ay gaarto astiraad okay qofkan aniga isku day inaa fahansiiyo ayagana daas ayay waxay ka helayaan loop way because psychologically you feeding them waxay rabaan loopkaas inuu gudahooda soo galo waxa adiga sheegaysid oo ma aragtay opposite ka adigana aad down dareentid ayaga laakiin kor u qaad moo adiga down aan noqotid moo they go up taasna is like markii dambe waa that's why scientists markii aad u baareen xataa psychological ahaan oo testida laga qaaday waxaa loo characterize loo sameeyey inay tahay disorder xanuun waana because qof normal ah caadi ah ma samayn karo waa disorder treatment xataa dadka la siiyaa oo ah si ay waxaas uga soo bixi lahayn either CBT oo kale and cognitive behavior therapy qaarkood waxa la siiyaa ma aragtay wax dadkii is og waa rabo in ay ka soo baxaan dad waxa jiro ayaga raadsado oo dhaho waxa rabaa in la idaaweeyo ama waxa rabaa in aan ka soo baxo arintaaneeto dadka dadka intelligent way raadsada ayaga raadsada in ay ka soo baxaan way jiraan dad saas sameeyo okay waxayna soo noqdo they always waa ka soo hadlay inay isu arkaan in ayaga gudahooda fiiriya in ayaga gudahooda ay happy ku ahayn self image kooda happy ku ahayn sawirka ay ka haystaan nafsadooda laakiin always waxa iska ilaalisaa ha ku celinin ma aragtay in aad repetition ha ku celin inaa fahansiisid waxayna ka aaminsan yihiin dadkoo dhan in ay ula dhaqmaan si qaldan saa hore usoo sheegay so waxay is dhahaan oh my god aniga si xunaa layla dhaqmay blame maanta dhan waxay ku jiraan frustration nolol ah ayagii they not settle waxaa laga yaabaa ina baawurka adduunka ugu qurux badan soo gataan daaha adduunka ugu qurux badan soo gataan guriga markaa soo geshid ee inay kaa hor keenaan and maanta dhan the obsession wixii obsess ay ku yihiin laakiin adigi they know ina isan ma aragtay ma fahmaan they know taking everything out sheegaysid so inshallah inta ku soo gabagabeynaya topican it needs ina ma aragtay more in depth local waa topic balaaran and gudaha ugu sii socon karin so inshallah try waxaan ku siinayaa laba tip haddii aad ma aragtay tahay qof waxaas kula dhaqma labadaas tip oo ah number 1 ha isku dayin ma aragtay do not react emotionally qofkaas markuu kula imaado emotional ahaan ha u react gareenin sababtoo haddaad reaction waxaan ka wadaa in aad dareenkaaga u muujisid haddaad dareenkaaga u muujisid ayagii waxay sii helayaan dheriga kor u sii qaadmaa they going up adigana hadhowda hoosa ku dhacaysa so the opposite as samaysid 5 minutes ama 1 second ama 30 minutes aamus ha u jawaabin maalinta kale waxa ku dirta ama sometimes as a therapy ahaan ani waxa ku sameeyaa dadka markay ii imaadaan ay dhahaan dad saas oo kala la noolaa maxaa sameeyaa jawaabtaasi waxay tahay waxaan siya method oo dhisa waxaan dhahaa waxa sameeysaa qofku markuu hadalku kula imaado straight away ha jawaabin oo emotionally ah ha u jawaabin adigoo ila waa xanaaqaysa soo qof ibn aadan hata markaa xanaaqdid ha u jawaabin 5 waxa tirisaa 1 2 5 maskaxdaada ka tiri breathe qaado haddana markaa joogtid 10 haddana tiri 1 2 ilaa 10 gaarsii maskaxdaada ka xisaabinaysa soo maskaxdaada mashquulinaysa jawaab ma siinaysid qofkaana muuse helin wax sii kordhiyo oo ma aragtay wix uu kula rabay oo kor u sii qaado soo taas iska ilaali and ha isku dayin inaad la dhiil garaysid you never will that is correct haystihin I can deal with them wala dhaqmi kara dadkan waa ku dhex jiri kara waa fix garan kara waa hagaajin kara waa sixi kara waxa tusin kara dadnimadeeda waxa dhigi kara you not ma aragtay waxa taa qof xun waa challenge is not gonna work lama deal garan kartid challenge ma siin kartid the only thing I dhigi kartid you know what I cannot help you adigana so much shut your ears dhiga inta iska xiritid emotion kaaga control jazakumullah khairan khayr idin rajayna insha Allah ha ilaawin ina share gareysaan topiga oo ah waalidiinta oo aan ka hadli doono 28th dadka London ku nool haddana insha Allah waqtigeyga ayaa ii dhamaaday jazakumullah khairan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh